madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa safar degdeg ah ugu ambabaxay dalka Kenya ka gadaal dagaalkii saaka ka dhacay degmada Balad Xaawo duleedkeeda halkaas oo ay isku foosareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Haddaba muxuu quseeyaa safarkiisa, maxay tahay ujeedada uu tagay magaalada Nairobi? warbixin umuurtaasi ku saabsan ayaan idinla wadaagi doonaa. ee soo dhowda wada haday tahay markaaga kuugu horeysay ee soo booqato halkan subscribe noo saar noona like garee muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. warar hoose oo la helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu u dhoofay dhanka iyo magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya. safarkan ayaa la sheegay inuu ahaa mid degdeg ah isla markaana aan la shaacin. ujeedka safarkiisa ayaana la sheegay inuu quseeyo guud ahaanba dagaalka Jubbaland ay ku hayso dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale inuu kala hadlo dowladda waddankaasi Kenya sidii ay uga gacansin lahayd dagaalka ka socda xadbeeneedka ay wadaagaan labada dowladood. waxaa la tilmaamayaa Axmed Madoobe in uu casuumaad ka helay dowladda waddankaasi Kenya isla markaana iyadu ay u yeertay kadib warar dhiilo u muuqdo oo ka soo yeeray saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo saaka warbaahinta la hadlay ka gadaal dagaalkii looga adkaaday Jubbaland ee ka dhacay deegaanka Tuulo Aamin oo hoostaga degmada Balad Xaawo ee gobolkaasi Gedo. waxaa la tilmaamayaa in dowladda waddankaasi Kenya qorshahana iyadu maalgelinayso isla markaana ay doonayso inay si toos ah u abaabusho Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo ciidamadiisa si ay dagaal ugala hortagaan dowladda federaalka Soomaaliya. qorshahan waxaa la tilmaamayaa in sidoo kale ay ku lug leeyihiin wadamo ay ka mid yihiin Ethiopia iyo isutaga Imaaraadka Carabta kuwaasi oo si janjeerihii u taageerayo Jubbaland. waxaase la tilmaamayaa Axmed Madoobe in safarkiisa uu ku horumarinayo gudaha waddankaasi Kenya ka gadaalna uu tagayo wadamada Ethiopia iyo sidoo kale waddankaasi isutaga Imaaraadka Carabta si loo sii ambaqaado wada hadallo markaasi wax ku oola kuwaasi oo ay guud ahaanba ku doonayaan inay ku caawiyaan Axmed Maxamed Islaam Madoobe kaasi oo ciidamadiisa dhibana u ah kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo ay isku wajahayna muddo 2 mar ah gudaha deegaanada gobolkaasi Gedo isla markaana 2 marba looga taagroonaaday dagaalka halkaasi ka dhacay. markan waxaa la tilmaamayaa inuu galayo abaabul weji kale leh waxaana uu kula kulmayaa saraakiil ka tirsan dowladda waddankaasi Kenya gudaha magaalada Nairobi. waxaa ka mid ah wasiirka deegaanka dowladda waddankaasi Kenya Aadan Barre Ducaale iyo saraakiil kale oo ay isku heeb yihiin kuwaasi oo guud ahaanba qorshihiisa uu bandhigayo. waxaana la tilmaamayaa inuu dhan kale la aaday kaasi oo ah in guud ahaanba kursigooda duulaan lagu yahay. beesha ogaadeen ee degta Nairobi ayaana la tilmaamayaa iyo odayaashooda iyo waxgaradka siyaasiyiinta ayaa la tilmaamayaa inuu u bandhigayo in kursigooda duulaan lagu yahay isla markaana arrintu aysan markan ahayn kaliya in Jubbaland duulaan lagu yahay. waxaana uu sheegay in qorshaha laga abaabulayo gobolka Gedo uu micnihiisu yahay in la duudsiyo kursiga beeshaasi ee hogaaminta maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe waxa uu doonayaa inuu kala hadlo saraakiisha uu ugu weyn yahay Aadan Barre Ducaale qorshaha markaasi in Jubbaland cusub ay uga dhisto gudaha magaalada Garbaharey in guud ahaanba ay beeshu ka hadasho isla markaana abaabul ay sameeyaan arrintuna dhan kale lala aado sida markaasi isaga uu doonayo isla markaana qorshaha uu aadayo magaalada Nairobi ay taasi qayb ka tahay. waxaa la tilmaamayaa in wajiyo kala duwan uu yeelanayo dagaalka gobolka Gedo. dowladuna waxaa la tilmaamayaa in markan ay qorsheynayso in ciidamo tirabeel ah oo masaari ah ay keensanayso kuwaasi oo la dhigayo xadbeeneedyada ay wadaagaan labada dowladood ee Kenya iyo sidoo kale Ethiopia si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada sifaalaha sharci darrada mar waliba uga soo tallaabaya xadbeeneedka isla markaana u soo tallaabaya dhanka iyo dowladda Soomaaliya. waxaa la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyadu ay dhinacyo kala duwan leeyihiin. ila dhowaan ah oo dhowaan soo baxay waxa ay ku waramayaan in Jubbaland ay doonayso in ciidamo ay dul dhigto gudaha magaalada Mandheera halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamadii dhowaan laga qabsaday deegaanka Tuulo Aamin isla markaana tagay gudaha magaalada Mandheera. daafta magaalada Mandheera ayaa la tilmaamayaa inay ku sugan yihiin isla markaana ay isku abaabulayaan. waxaa la tilmaamayaa Jubbaland in dabaabaad dagaal oo tirabeel ah toddobaadka soo socda ay ka helayso isutaga Imaaraadka Carabta kadib markii Axmed Madoobe uu gacanhaatiyay isla markaana dagaalka looga taagroonaaday. waxaana la tilmaamayaa in dhinacyadu ay markan ku heshiinayaan. qorshuhu waxaa la tilmaamayaa inuu yahay in dabaabaad dagaal ay diyaaradaha halkaasi uga soo daabulaan isla markaana ay keenaan magaalada Mandheera si markaasi ay uga qabsadaan magaalada Balad Xaawo oo ay dhowaan isku wajaheen dowladda federaalka Soomaaliya. saakina dagaal halkaasi ka dhacay looga taagroonaaday isla markaana lagu dilay saraakiil muhiim ah oo
maamulka Jubbaland ka tirsan oo uu ka mid yahay taliyaha saldhigga booliiska ee degmadaasi uga magacaawna maamulka Jubbaland. Waxaa la tilmaamayaa in tallaabooyinka ay dhinacyo kala duwan yeelanayaan dagaalkuna uu markaasi intan kasii ballaaran karo haddii dhinacyo kale ay kusoo biiraan. Kenyana waxa uu ka abaabulaya Axmed Madoobe dhaqdhaqaaqyo culus kuwaasi oo uu ku wajahayo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Malmihii ugu dambeeyay gobolka Gedo waxa uu martigelinayay xiisado siyaasadeed oo isku dhafan kuwaasi oo wajiyo kala duwan leh oo ay kala abaabulayaan dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Jubbaland. Waxaase la tilmaamayaa markan in guud ahaanba dhan kale lala aadayo. dowladuna waxa ay doonaysaa in Jubbaland dhismaheedu ay ka gudagasho gudaha magaalada Garbaharey. ciidamo tirabeela ayaa toddobaadyadana halkaasi ku daabuleysay ilaa iyo 3,000 askari ciidamo gaaraya oo ka tirsan kuwa xooga ayaa halkaasi la dhigay. waxayna doonaysaa dowladdu in Garbaharey ay ciidamadaasi geyso si halkaasi loo geeyo isimada maamulka Jubbaland kuwaasi oo guud ahaanba gudagalaya dhismaha maamulka cusub ee halkaasi laga yegleelayo. Axmed Madoobena waxa uu doonayaa in beesha ogaadeen uu ku wargeliyo in kursigooda boob lagu yahay isla markaana Xamse Cabdi Barre tallaabadaasi uu raalli ka yahay. walow ilo kale ay tilmaamayaan in Axmed Madoobe iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay isku go'aan ka taagan yihiin qorshaha lagu bedelayo guud ahaanba kursigaasi isla markaana beesha Mareexaan ee degta gobolka Gedo looga wareejinayo. waxaa la tilmaamayaa in mooshinadii dhawaanba soconayay guud ahaanba ay salka ku hayaan qorshahaasi isla markaana loo bedelayo ra-iisul wasaaruhu ka gadaal markii uu ka biyo diiday in guud ahaanba kursigaasi loo bedelo beesha Mareexaan isla markaana laga qaado beesha ogaadeen ee markaasi isaga uu matalo. dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyo qorshayaal kala duwan ayaana gobolka ka soconaya kuwaasi oo xiisadaha dab ku sii shidi kara lama soo oga halka ay saldhigan doonaan.